magaalada Qardho waxay ka mid tahay magaalooyinka lagu dhaqdo shinnida waxaana ku yaala beero kala duwan oo laga tacbado dalagyada kala duwan. Cismaan Cabdalla Maxamuud maamulaha shirkadda malabka Suez oo aan ku booqday beertiisa ku taala duleedka koonfureed ee magaalada Qardho ayaa wax ka weydiiyay sida uu u dhaqdo malabka iyo goobaha loo iibgeeyo. ilaha mahad leh maanta noo soo degelay inuu saaxiibkay Cabdiraxmaan Balaag soo booqdo halkan aan joogno waa xarunta malabka shinnida lagu xanaaneeyo oo ku taala Falax meeshaas oo aan ka soo saarno malab sanadkii 2 jeer laga soo gooyo malabkaas oo loo iibgeeyo meelo badan sida Garowe Boosaaso iyo meelo badan malabka waxa la dhahaa Suez honey waxaan laga helaa magaalada iyo meelo badan waxa weey company-ga waxa la aasaasay 1996 shirkaddu xarunteedu waxay ku taalaa Qardho gaar ahaan farmasiga caanka ee la yiraahdo Suez Pharmacy taas oo aan ugu magac daarnay shinnida laftigeeda oo aan magacoonay Suez honey ama shirkadda malabka ee Suez waxaan ugu bishaareynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ama gaar ahaan dadka reer Puntland meel kasta ay joogaan malabkan inay ka heli karaan ama ay soo dalban karaan si fududna lagu keeni karo malabkaas waxa weeye micnihi malab ah saafi ah dadku waxa weeye maadaama shaki iyo wareer iyo dhibaato heshay malabkaas aan gacanteeda ku soo goyno gacanteeda ku miirno. Maxamed Maxamuud Cali wuxuu ka mid yahay dadka beeraha ku leh magaalada Qardho waxaana beertiisa ka baxa dalagyada kala duwan iyadoo dhaqashada shinnida ay qayb ka tahay. mashruuca shinnidu waa mashruuc muhiim ah waddankeennana waa ku yar yahay adigu intii hadda burburkaayad baan anagu dhaqanaynay shinnidu waa khayraadka Ilaahay dhulka ku banaystay oo dhulka ku fiirsan dhaqashadeeda dadku ma yaqaan laakiin qararka inta laga goosto baa la sii daayaa anagoo soo qabanaa waan dejinaa deegaan baan u samaynaa sanaadiiqda aad arkaysaan waxaanu ku xaraynaa halkaas boqorkaan u xirnaa muddo kooban haddii boqorka loo xiro awlalay samaynaysaa awlalladaas ay samayso baanu ku dhex sii daynaa dabadeedna halkaasuu hawsha ka bilaabaa shaqada qaar baa 10 sano hadda noo xiran oo aanu munaafacadsanaynay markay dhashana tii dhala waan ka qabanaa sanduuq qalaan geynaa sidaasay ku tarantaa risqa ilaahina ilaa 7 kilomitir bay ka soo adeegataayo marka shinnidu waa mashruuc aan la garan laakiin aad u faa'iido badan daawo badan inuu ku jiro hawsheeduna kooban tahay oo aan guurguurino hawlo badan aan gelin weey. Cabdiraxmaan Maxamed Cali Sub News Qardho.